ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa xooga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan Jubbaland ayaa qasaaro badan gaarsiiyay kooxda maleeshiyada oo isku dayay in ay weerar gaadma u geystaan xarun ciidamada huwanta ay ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni oo qiyaastii 75 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo. xalay abaara saacadu marka ay ahayd 4 habeenimo ama 10 saac habeenimo ay isku dayeen in ay arbushaad iyo qasaaro ay u geystaan ciidamada, balse xogtooda oo ahayd mid laga sii warhayay ayaa ciidamada Jubbaland iyo kuwa xooga dalka u sahashay inay ka hortagaan qasaaro badan ay gaarsiiyaan isla markaana ay fashiliyaan wax ka badan 4 qarax oo ay damacsanaayeen in ay ku dhibaateeyaan geesiyaasha ciidamada Jubbaland iyo kuwa xooga dalka ee halkaasi xarumaha kule. ciidamada oo si infantry ah ku socday ayaa ka daba baxay isla markaana aag u dhow buundada Araare ku helay kolonyo siday dhaawacyo badan oo maleeshiyada ah, waxaana halkaasi ka dhacday qasaaro fara badan. tiro lagu qiyaasay 73 maleeshiyada al-shabaab ah ayaa la dilay, waxaana la gubay 3 gaari oo nooca dagaalka ah iyo 1 gaari oo nooca rakaabka ah ee loo yaqaan UD, kaasi oo ay saarnaayeen in ka badan 60 ka tirsan maleeshiyadka al-shabaab oo halkaasi ku nafbaxay. kaashaan la dhexe Xasan Maxamed Aadan Ciraaqi, taliyaha ciidamada danab qaybta Jubbaland, ayaa howlgalka kadib warbaahinta kula hadlay duleedka deegaanka Baarsanguuni, waxaana ka warbixiyay qasaaraha la gaarsiiyay maleeshiyada al-shabaab. ilaa meesha la yiraahdo waxa weeyaan Araare ilaa Koban, intaas oo dhan bay ciidamadu waxay cayrsanayeen nimankii cadawga ahaa ee soo weeraray xerada Baarsanguuni. runtii waxa weeyaan nimanka cadawga jab iyo halaag baa halka ka soo gaaray. waxaanu anagu maanta aanu ku guuleysanay inaanu cadawga baabi'ino 75 cadawga ka tirsan oo al-shabaab yaanu maanta waxa weeye dhimashadooda ummadda Soomaaliyeed una soo bandhigaynaa una cadeynayna. waxa weeye dhaawacuna inta uu ka sii badan yahay ilaa waxa weeyaan ciidamada Soomaaliyeed iyo ciidamada caalamiga ah waxa weeye ummadda Soomaaliyeed caawinaya ilaa meesha ugu dambaysa ee ka guuleysanana ka hadhimayno. waxa weeye waajibaadka waxa weeyaan madaxweynayaasha Soomaaliya ay nafareen baana waxay ku astaysan tahay